magacaygu waa cali jaamac waxaan ahay madaxa qaybta hagidda diyaaradaha Soomaaliya halkan waxaa ku rakiban qalab la yiraahdo communication facilities diyaaradaha lagu hadlo ama lagu hogaamiyo wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood laba qaybood waa raadiyaal qayb waxa la yiraahdo VHF range-geedu uu gaaro 200 mayl 250 mayl qayb waxa la yiraahdaa HF waa qayb wadanka oo dhan communication-kiisu gaaro qaybtaas waa HF-ka iyo raadiyaasha qaybta kale waxa la yiraahdaa CBDLC ADSC waa latest technology loogu talagalay in looga gudbo isgaarsiinta raadiyaasha gaar ahaan HF-ka oo kale oo had iyo goor communication-ka iyo duuliyaasha iyo controllers-ku ay dhibaato kala kulmaan ismaqalka marka la kala fogaado because mararka qaarkood waxa laga wada hadlayaa 2,000 kilomitir 3,000 kilomitir meel ka fog ayaa laga wada hadlayaa marka CBDLC-ga iyo ADSC-gu waxa weeye latest technology oo loogu talagalay in communication facility-ga lagu sahlo wada hadalka diyaaradaha duuliyaasha iyo controllers-ka hawada Soomaaliya diyaarada aad fara badan baa mara basically waxaana weeye arintu air transport ayaa guud ahaan kordhaya Soomaaliyana waxay ku jirtaa wadamada air transport aad u sii kordhaya sababtoo ah isku socod xagga dhulka oo yar ayaa keentay inay kororto xadiga air transport ay koraan guud ahaan diyaaradaha waxay u qaybsamaan qayb dul marta wadanka oo transit oo adduunyada u kala gooshta qayb soo degaysa kana kacaysa marka dulmarka haddii aan qiyaaso 150 ilaa 200 in ku dhow diyaaradood ayaa wadanka dulmara oo inta badan u badan traffic ka yimaada bariga dhexe oo u socda koonfurta Afrika ama Afrika inteeda badanba iyo traffic ka yimaada Europe oo u socda Indian Ocean ka gaar ahaan Seychelles, Mauritius, Reunion, Madagascar dhulkaas oo dhan traffic kale waxa uu badan yahay traffic domestic la yiraahdo oo ah diyaaradaha wadanka soo dega kana kaca domestic qiyaastii asaguna 200 oo flight waa gaaraya oo guud ahaan wadanka oo dhan taga dad magaalooyinka waaweyn kaliya laakiin subaxii garoonka hadda timaado magaalo kasta ama tuulo kasta oo wadanka Soomaaliya ku taallaba diyaarada u kacaysa diyaarada ka imaanaysa taasina waxa ka mid ah sababaha kordhiyay air transport-ka